Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad kusoo dhawaataan casharkii saddexaad ee aynu ku baranaynay si qaabka database-ka loo sameeyo inagoo isticmaalayna barnaamijka Access-ka. Ugu horreyntii barnaamijkeenu soo kicinaa marka hore aynu bilowna casharka. markaan soo furano xaggan si aynu ku wada aragno waxaynu soo geliyay waxa loo wixii table ah ee aynu sameeyno. ugu horeyso waxaad sameynaysaa tusaalaha waxaan rabnaa ka magaca inaynu badino height-ki. si aad hadda u bedeshid height-ka rowgaaga waxaad sameynaysaa marka koowaad isaga dooranaysaa kabacdi home tab ayaa tagaysaa kadib waxaad kasii dooranaysaa groupka loo yaqaano records-ka kabacdi waxaad kasii dooranaysaa halka ay ku qoran tahay more kadibna waxaad kasii dooranaysaa halka ku qoran tahay row height. halkan ayaad ka bedeli doontaa tirada oo aad ku qori doontaa. marka imika waa 14.25 tan imika horna 30.25 ama 30 iyo badh hadeen orano. okay baan siinaa si la wada socono rowga gebigiisa height-kiisa waa u kordhay waxaana noqday mid dheer. sidoo kale waxaad sameyn kartaa markaad doonaysid inaad bedeshid column-ka isagu wuxuu noqonayaa wilis balac buu yeelanayaa isagu maadaama column-ku kuwan saa u soo taagtaagan yihiin ee loo yaqaano joogtaha halka rows-ku ay yihiin jiiftaha. marka kaad doonaysid inaad ku raday bilciisa bedisid ayaad dooranaysaa kadib tusaale waxaan dooranaynaa subject oo kale ama date-kaas oo kale dooranaa kabacdi waxaan tegaynaa home halka ku qoran tahay more ba tegaysaa halkaa hoose waxaad ka baaraysaa field wilis halka ku qoran tahay. haddaan kusoo celino marka ugu horeyso column-ka dooro kadibna home baa taabani groupka loo yaqaano records waxaad ka doorataa more field wilis ayaad sii dooran doontaa. marka sida standardka ahi waa intan laakiinse waxaad sameyn doontaa waad ka yar bedeli doontaa markaad doonaysid inaad 25 okay dheeraado imika aad ayaa u ballaaray si loo wada socdo. hab labaad ayaad sameyn kartaa oo aad ku ballaarin kartid column-ka bilciisa lead-ka ay labada column wadaagaan xadka ah ee u dhaxeeya ayaad mouse-ka dul saaraysaa bacdina double click baad oran dhinaca doontaad u jiidi saasaad ku jiidi kartaa bahalkii column-ka aad ku ballaarin. okay markaad rowga dib sidiisa ugu celinaysid isagana waxaad dooranaysaa rowgaad doorani bacdi home baad taabani records-ka more ka taabo row height baad oranaysaa halkaasaad tigta saaraysaa standard umaad ka dhigaysaa sidii hore ku noqonay. column-kana waa la mid home baad taabani bacdina more kadibna field sida standardka iga dhig baad oranaysaa okay baad kana aynu ka dhigno sax. casharka intaa ku xigaynu sameynaa waxaa noqonayaa habka loo bedelo farta kugu qoran rowgaaga. magaca ayaynu bedelaynaa imika kadib waxaad markaad isaga dooratid ugu horeynta home kaalay home tab-ka kadib groupka loo yaqaano text formatting. barnaamijyadii hore waxaynu ku naqaanay position-ka farta iyo waxyaalaha halkaasi ooli jirin kuwaynu soo marnay kanse halkan yaalaan. halkan baad ka dooran doontaa fartood baanta nooceeda oo aad ku qoran doontaa fartaas oo kaan tusaalahaan isticmaalaynaa size-kana waxaan ka dhiganaynaa 12 14 midabkana waxaad ka dhigan kartaa kaad u baahan tahay. okay bold italic underline kuwaasaynu kusoo aragnay barnaamijkeeni word-ka hadba kii aad rabtid ku sameyn kartaa. markaasaynu aragno fartiina way isbedeshay midabkeediina way isbedelay. haddaynu ku yar noqono habkaasaad u bedeleysaa farta haddii aan la yiraahdo.